qarax xoog leh ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya galabta oo xadahayd wararka dad goob joogayaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaasi lala tilmaameedsaday mid ka mid ah hoteelada ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka Island iyadoo la sheegay qaraxaasi in hoteelkaasi afaafkiisa hore uu ka dhacay wararka qaar ayaa sheegaya in ilaa iyo haatan ay rasaasayn ay ka socoto gudaha hoteelka Island ee magaalada Muqdisho rasaas xoog leh ayaa caawa laga maqlayaa gudaha hoteelkaasi dadka ku geeriyooday qaraxaasi inta la xaqiijiyay ayaa waxa kamid ah Allahu naxariistee agaasimihii xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdirasaaq Cabdi ayaa ku geeriyooday qaraxa waxaa sidoo kale kamid ah dadka ku dhaawacmay sawir qaade Maxamed Cabdi Xuseen oo ka tirsanaa howlwadeenada telefishinka qaranka Soomaaliyeed wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka tacsiyay geerida agaasimaha gobolada xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya dadkii kale ee ku dhintay weerarkaasi ka dhacay hoteelka Island oo ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa kamid ah agaasimihii xiriirka gobolada wahagaaga daawadayaal waxaa hadda khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyahayaga Maxamed Cabdiqaadir Nuur Haajir oo kamid ah wariyaasha telefishinka RTN uga soo warama magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya bal Haajir soo dhawow hadaad maqasho Haajir bal ugu horeyn waxaad nooga warantaa xaaladda magaalada Muqdisho نعيم وما سنتهاي قبل لعي قلصة وحاور كدعي هوتيل إلاي كوكيو على حيبتا ليدا طبعا مرة ورا قرح جاري يا النور هوتيل كريت ورا كتبنا تبليغ ورسن يا جودها وقال هوتيل كا إلا حتى عن للحظة جودها كنت قال لهم بس فرضاً كنت جودها يا نيكو وكل هاي شغالها هوتيل كا يمكن هوتيل كجريس وحنا القلقة جدا كلنا لما جاء في جودة حركة كده موضوع شيء بس لحد في جودة حكومة أيام يفرق وغلط إدارة الصومالية وهاجا هاجر aad baad mahadsantahay in sidaad horeba u sheegtay khasaaruhu uu badan yahay oo dhimasho iyo dhaawac uu leeyahay ma la xaqiijiyay tirada guud ee dadka meesha ku dhintay ama base ku dhaawacmay طبعا جديد برمجة أمبلاس أو يجي دوني يتقاوى على هذين المستوى كقادان يجي كتا جده المجال كران دكتور حالو فرح حركي سلامي من الناس ماشي تها ناس حالته يجي كل كذا سؤال إلا لما راح تذكره ترد المسؤول داوع لكن هاي الشيء بس قارئ تبت نقولك وأنا ورثنا في نفس الشيء إن أيقين المسؤول في قدم هوتيل بنفسي دورنا in hadda hoteelka Haajiro ayaa gacanta ku haya ma ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya mise qaar kamid ah ragii weerarkaasi soo qaaday نعيم رصاص بدن أيام جده لا مقلة رصاص أو موجودة إن جميع الدولة يعني جميع كلنا يوميا أي نبغى على ما يعني تبتدي تصور رأي وتبتدي الشيء يكون في ثابت من الهوتيل كا بدال كنا يعني جدا إن بالبادية بس هوتيل معطل تمركنا نبغى على ما تبتدي تصور مركا هوتيل كله يكون جرا رجع إنت كل الحقيقية إذا ما يعني نبغى على ما مرة بس waxaa la maqlayaa qabaqa qoryaha culus iyo dambuulooyin aan loo dhawaan karin goobta warbaahinta iyo meelada gurmadka hal meel bay wada joogaan laamaha amniga ayaa howlgal ka wada meeshana dhowr
tallaabo looma dhawaan karo marmar ka dambaysa dad waxa baa laga saaraya qofka wax baa laga saaraya marna waxaa laga saaraya dad la soo badbaadiyay iyagoo dadka laga saaraya marka kale wixii howlgalka markuu dhamaado baa la xaqiijin karaa tirada guud ee bulshada iyadoo laga warshigay dowladda Soomaaliya wahagaag haashir aad baad mahadsan tahay ugu dambeyn dadka la soo badbaadiyay ee ku sugnaa gudaha hoteelka Islet markii weerarkaasi lagu soo qaaday ma xaqiijiyeen ama ma aqoonsan karaan tirada inta ay yihiin dadka weerarka soo qaaday ee haatan ku jira gudaha hoteelka Islet ee wali ka dagaalamaya qof kamid ah dadka hoteelka ayaa inoo xaqiijiyay in ilaalada ama shaqaalaha hoteelka in kamid ah ay dhaawac ka soo gaaray dad hoteelka macaamiil lahaa ama isticmaalayay in ay adeegyada kala duwan u soo doontaanna dabcan waxay inoo xaqiijiyeen inay arkeen tiro dadkooda oo hoteelka farxadiisa yaalay marka lama xaqiijin dabcan qof dadka wareysanayna waa dad waxay ahaayeen walwalsan oo dabcan gudaha laga soo badbaadiyey oo maskaxdooda waxba ku furan warkoodana si toos uma qaadan karno maxaa yeeshee waxaan sugaynaa inta howlgalka laga soo afkarayo wahagaag aad baad umahadsan tahay haashir mar labaad wahagaag daawadayaal kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdiqaadir nuur haashir oo kamid ah wariyaasha telefishinka RTN ee xarunta magaalada Muqdisho telefishinku ku leeyahay waxa uu inooga warbixinayay xaaladda guud ee magaalada Muqdisho iyo qaraxaasi galabta ka dhacay afaafka hore hoteelka Islet oo kamid ah hoteeladii ugu dambeeyay ee dhawaan laga hirgeliyo caasimadda Soomaaliya gaar ahaan xeebta Lido ee magaalada Muqdisho oo ah hotel nasasho oo inta badan shacabka Soomaaliyeed ay halkaasi u tagaan nasasho